بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan rabaa inaan salaamo ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ardada soo qalin jebinaysa ee Soomaaliyeed ardada Green Hope qalin jebiyaasha u dambeysay ka baxday kuwa gobolada sida Beledweyne Qardho Garowe iyo Xamar hadda waxaan dhameynay qalin jebinta u dambeysay insha Allah oo dafcadii 13aad ah jaamacadda Green Hope ka baxday waxaan leeyahay ardada baxday iyo dafcadii ka horeeyay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan leeyahay hortina qaar dhigo wada salaameynaa waxaan kaloo salaameynaa ardada soo xaroonaysa maanta ee Soomaaliyeed ka soo qalin jebiday dugsiga sare iyana waxaan leenahay gacmo furan ku soo dhawaada iyo farxad iyo soo dhaweyn maadaama ka soo qalin jebideen dugsiga sare u diyaar tihiin in jaamacad ku soo biirtaan waxaan diyaar idin nahay soo dhaweyn hadana baad jaamacadda Green Hope soo dhaweyn aad iyo aad u macaan iyo idinkoo ku qanci doona aqoonta iyo arrin soo dhaweynta iskoontiyan oo sameey doona scholarship oo bixin doona tii la yiraahdo waxaan leeyahay arday soo dhawaada kuwa dhigtana waxaan leeyahay sida ardayda hore u baxday u dhameysteen waqtiyadoodii qaaliga ahaa idinkana Allah daga dhigo kuwa ku dhameysta annagu waxaan diyaar u nahay jeer ardayga Soomaaliyeed dhameysta shuruudihii laga rabay jaamacadda in shahaado aan siino isla waqtigaas aan ku siino annaguna aan u fiirin xilli taahitaan damba ah aan ku beegno on time markuu shuruudaha u dhameysto wixii aan miis ku saarnay la yiraahdo midan bilaabayna ma ahan waa mid ku soo wadnay ardayda qalin jebida hore runtii waa arday qiimo badnaaday oo saaki ka haya shaqaalaha dawladda xubno waaweyn ka haya aad baan u salaamiyaa waxa kale noo dheeri ah maadooyin cusub oo dalka ka istaagan sanaa sida maadada criminology study iyo maadada afka Soomaaliga oo baajkii uu reey aan ka bixinay dafcadii saddexaad ay baxday hadeer waxaan diyaar u nahay in aan qaban doono arday badan oo baaj ah oo Soomaali ah idan Ilaahay kuna sii doono waqti dhameystiran ardayda Soomaaliga qalin jebidayna waxaan isku dayi doonaa in mar dhow oo bilaabi doono post graduate bilaabi doono tii la yiraahdo hadana baad jaamacadda Green Hope kama caajisi doono wixiiba waxbarasho aqoon ku saabsan heer baaj master PhD insha Allah inta wadi doonaa annagoo goboladan hadda joogna xamarna ku sugan qof kasta ee baahi u qabta jaamacadda Green Hope waxaan ballan qaadaynaa inaan ka qabtiiro doono kuna sii doono xilligeeda shahaadaduna weydiistay oo ah baahida u soo galay jaamacadda insha Allah iyo aqoonteedii oo dhameystiran oo ku xiran waxa jirta arday badan oo markii bilaabaan jaamacadda Ilaahay calaf u gashay in bilaabaan laakiin aan dhameynin marka waxaan la ardayda Soomaaliyeed haddii aad jaamacadda bilowdaan isku day in dhameysataan annaguna aan idigu ogaano aqoon waafi ah dhameystiran xilligeeda gaarta iyo shahaado u qalanta inaan ku siino taasna annaga inaga saarna dusha waxaan leeyahay ardayda Soomaaliyeed kuwii jaamacadda Green Hope qalin jebiyay kuwa hadda dhigta kuwa soo gali doona insha Allah hortina qaar Allah dhigan leeyahay aad baan salaameynaa waxaan marka diyaar u nahay in soo dhaweyn badan aan u sameeyo ardayda soo gali doonta ee maanta soo xaro doonta insha Allah dilayo ayaan aad baan soo dhaweyn doonaa waa salaam ya meeqa joogtaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh